maalin walbaba naftaada waxaad rabtay inaad samaysaa way ku garab marayaan fursad kasta oo ku hor taalana way kugu adkaan inaad ka faa'iidaysato haddaad maqasho qof oranaya roobku biyo uma baahna fakarka maskaxdaadu siduu noqon wuu qasmi waxaad leedahay biyaha dhan ee aynu haysanaaba roobkay ka yimaadaan roobkuba waa biyo sax hadalkan aad sheeganayso uma baahna inaad sheegto waayo waxaad maalin walba ku sugan tahay waad sheegataa oo keliya laakiin ficil ahaan marka lagu fiiriyo dabeecadaadu waa liidataa dhaqankaagu waa hooseeya daciifnimo ilaahay uusan ku badin oo aad adigu dooratay baad naftaada u quurtay inay ku dhex jirto waxaana run ahoo jirto qof kastoo ina ka mida aynu dhammaanteen isku wada raaci doono isla qiri doono in qofku hawl kastoo muhiima marka ay hor timaado naftiisu ay raadraadiso cududaarkii ay kaga baaqan lahayd cududaarkii ay kaga dhuuman lahayd badina naftaadu waxay ugu baahi badan tahay waa inta inaad waqtiga yare kooban aad naftaada ka adkaato oo ku qasabto waxa dantaadu ay tahay waxa dhici karta inaad wadankii hooyo joogto waxaana dhici karta in wadamada caalamka mid ka mida aad joogto aadan shaqaynood baaga muddo tahay waxaana laga yaabaa naftaada inaad leedahay masaajidka safka hore kuma soo tukan karo sababta koobaad ee ku haysataa waa liidashada fiidka hore aad ku sugan tahay habeenkii oo dhan waad dhafartaa waxa aad ku dhafraysana ma taqaanid wax faa'iidaana kuguma jirto wixii noloshaada dheef kuu keeni lahaabad maalin walba dib u dhigaysaa waxaanad isweydiin dhibaatadan haysata sideen uga baxaa intaa weliba waxaa dheer haddii aad ka tirsan tahay kooxaha yidhaahda ilaahay saan u baryayey waan daalay maalin walba ilaahay waan baryaa habeen walba ilaahay waan baryaa laakiin ducadayda waa layga aqbali la'yahay bal aynu nafteenna xisaab ahaan isdul taagno haddii hal lagu daray lagu yidhaahdo waa 3 ma yeelaysaa waa maya waxaad leedahay hal lagu daray waa 2 haddii bal ka warran 2 lagu daro waa 4 haddaan ku yidhahdo waa 8 meega aqbalaysaa waa maya ilaahay wixii uu kaa codsaday baad la'dahay waxaanad isweydiin waxaan rabbigay ka codsaday muxuu ii siin la'yahay bal adigu qof baaga muudahay hadduu ku yidhaahdo gurigaa ma gadan karo baabuurkaa ma gadan karo cuntadaa ma cuni karo kabahaa ma gadan karo dharkaa ma gadan karo maxaad ugu jawaabi lahayd waxaad oran lahayd sax shaqaba ma haysid shaqadaa ka horraysa hadduu dhinac kale ku yidhahdo inaan gataan rabaa maxaad oran shaqaa ka horraysa marka hore inaad shaqaysato lacagtu sidaasay ku iman dhinaca kale hadalkan ujeeddadan uga socdaa waxay tahay bal adigu qof baahan oo leh dhibaata ay haysata habeenkii oo dhanna telefishin ku soo jeeda ama ciyaar ha noqoto ama film ha noqoto ama telefoon ha noqotee oo inta habeenka soo hartayna hurda barqadiina isweydiinaya dhibaatadan sidaan uga baxaa maxaad oran lahayd haddaadna u fiirsato kitaabka qur'aanka ee laga yaabo in badanoo ina ka mida in guryaheenna uu boorku ka buuxsamay waxaad ka heli doontaa suuratu lmaa'ida allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min alsaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allahu man yakhaafuhu bilghayb ujeeddada aayaddan aan u keenay maxay tahay wakhtigaa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa saxaabada radiallahu canhum loo diiday wakhtiga ay xajka ku jiraan inay ugaarsadaan haddana saasoo ay tahay wakhtigaa la joogo ee ilaahay uu u diiday inay ugaarsadaan baa ugaartu meel dhow u imaan jirtay halkan dhow weliba seeftu waaba gaartaaba inay cayrsadaan ka daba ordaan raadiyaan umaba baahnaba meel walbayba iska taagtaagantahayba ujeeddada aayaddan aan u keenay waxay tahay aanna rabo qof kastoo idinka mida inaad fahantaan telefoonkan aynu maanta dhammaanteen wada sidanno ujeeddadiisu maxay tahay rabbi waa ku siiyey adoon gadan karin oon awoodin qaarkiin telefoon $1,500 maraykanka jooga baa idinkoo soomaaliya jooga haysataan isweydii sababta ilaahay uu kuugu fududeeye maxay tahay ujeeddo keliya laga leeyahay ujeeddadaasuna waxay tahay inaad ka faa'iidaysato iyo in kale liyaclama allahu man yakhaafuhu bilghayb qofka ilaahay si dhaba uga cabsanaya sidaad u badan tihiin dhallinyaro haddaad tihiin weliba gaar ahaan rag dumarka laftigoodu xataa way ku jiraan maanta indhihiinna ma ka leexisaan markaad ku aragtaan telefoonka wax ilaahay uu idiin diiday sidaad u badan tihiin maya dumar haddaad tihiin wiilasha qurqurxoona dheerdheer markaad aragtaan waad raacraacdaanoo waad daawataan haddaad rag tihiinna iska baddaa inaad daawataana qaarkiin halaagiinna idinkaa gacmihiinnaba ku raadsada oo telefoonka ilaahay kuugu nicmeeyebaad intaad qaadato ood cidlo la gasho ood hareeraha iska fiiriso albaabka laga yaabo inaad soo dhuuqsatood soo xirato ayaad waxaad ka raadin wixii aad ku halaagsami lahayd wixii noloshaadoo dhan kharibi lahaa wixii carada ilaahay inay kugu dhacdaba ay ka ratibmi lahayd markaasaad waxaa daawan kadib maxaa kuugu xiga daciifnimada maanta aad tahay ee tan qalbiga iyo tan jirkaaba wixii aad ka qaadi lahayd baad samaysaa siigaysiguma waxaad moodday inta yare aad samaynaysaa laga yaabaa farxad inaad ku yara dareento rag iyo dumarkaad doontid ba ahaw wakhtigan aynu joogno dumarka laftigoodu waa daawadan bulshada dhexdeedana waxyaaba aynu ka arkaynay ka yeeraya waxa ka keenaya wax kale ma ahan haddaba naftaada
waxa aad ku halaagsamayso jooji inta waxa naftu ay macaansanaysa macaankoodu dhow yahay naftaadu ay u degdegayso waxaad ogaataa wax kasta oo mustaqbal fog noloshaada aad ku raaxaysan lahayd ayaad ku waayaysaa intaa kadib baa rabbigeen aayadda wuxuu ku gebagabeeyey waxa ka ratibmaya markaad xadgudub la timaado faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim adduunyadu cadaab bay leedahay qofka bini aadamkahay ciriirka uu dareemayo iyo dhibaatooyinka haysta iyo faqriga uu ku jiro meesha keliya qofka uu kaga bixi karaa waa inuu rabbigii ka xishoodo markaad goonni la noqoto telefoonkaaga rabbigaa waxaad xusuusataa inuu indhahaad ku daawanayso ku siiyey waxaad ogaataa inaad daciifnimo ka qaadaysid waxa kan raaxa lamood waad ku jirtaa laakiin rafaad adduunyo iyo cadaab hadduu jiro ayaa ku haystee waadan ogayn waxaana tahay qof tusaalihii xarig siriq ah qoorta loo geliyey kadibna lagu yidhi haddii aad xadkaa goyso mar walba oo aad sii durugtaba waxaad ogaataa in xariggaa siriqdu kugu sii dhuuqsami doonto taasooy ka dhalan karto in naqasku kugu dhego taasooy dhici doonto in marka dambe aad u dhimato haddana weli waxaad dooratay inaad xariggii ka sii socoto adoo og xariggan inuu meel ku xihan yahay kuna dheggan yahay qoortana uu kuugu jiro kuna ceejinayo ayna 100% hubaal tahay haddaad sii socoto inaad ku dhiman doonto